السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي السلام يا عيد والبوعد كي المقشة وأنا صالح علي عبد النبي عبد الله المعيش أو كما قاعد صالح عرب كنا هيسا أفك الصومالية الصومالية كانت ترسنا دولة في الصومالية إثيوبيا وأيضا دنبنا حتى كسرنا هرقيسة أنا هرقيسة كل يومين وحنو جيمد ضلك مصر بان وجيمد هرقيسة وحنو يمدينا البرنامج كو قبطه وأنا كو قبطي صعدوا هي لو أدنى وحقتي مقدشو aan kula soo qaadanay waqti taageerayaasheeda 5 bilood ka hor baan muqdisho ka soo laabtay hargeysa imid hargeysa markaan imidna waa la xiray bacda 5 bilood ka bacdi ayaa waxa lagu soo oogay kiis ah xamar baa tagtay anigu waxaan ahaa fanaan ka tirsan fanaaniinta dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya dhalasho ahaanna ka soo jeeda dalka Yemen hargeysa waxaan ku soo galay sharci iyo fiisi haddii anigu aan madax badnaanida Somaliland aanan dalku gal iyo fiisi kama soo qaateen qaahira sharcina kuma soo galeen rumaantii muqdisho haddaan aadan waxaan ahay fanaan dal imid dal kale tagay booqday baan anigu Djibouti baan ka soo heysay dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ka soo heysay meel walba Soomaali joogto u taageerayaasha joogaan waxaan jeclahay inaan tago aan waqti la soo qaato waxaan ku xiranahay 12 cisho saldhigga dhexe ee Hargeysa waxa la igu yiri CID baa ku haysta laba mar baa maxkamad la geeyay wax dambi gaar ah oo lagu soo oogay ma jirto dalka waxaan ku joogaa sharci iyo deganaansho oo waxaan ahay nin Yemeni ah oo deganaansho dalka uu saaray citizenship dalka uu saaray kaar qaxootiga haysta bana dalka sharciga uu yaala ma baalmarin cid ma dilin cid ma dhicin cid ma xadin fanaaniintii u dhashay Somaliland ee mushaar ka qaadanayay baa intii xamar tageen ka soo heysay ka soo noqday ayaa magaalada dhex maray oo aan cidna soo xidhan anigoo miskiin ah oo nin waxaan ku yiri xanuunsan ah kristool iyo dhiikar baan leeyahay dawooyinkaygii baa la siin waayay tacaddi gaaran meesha ku dareemaya xalay iyo habeen hore ilaahay baa og xaaladeyda gacan iyo lugba aan isku ogeyn baa imka xanuun soo bidix ah waxa la leeyahay kumaan soo xidhan CID baa soo xidhan CID soo xidhan xitaa iigeen taaganay shalay maxkamad ayaa la geeyay maxkamad laba mar markii la soo istaajiyo wax dambi gaar ah lagu soo oogo la waayay waxay tiri ninkan kiiskiisa hal soo gabagabeeyo eediisa rasmiga CID soo gudbis maanta ay balanta in la geeyo layma geenin ilaa imika wax la igu haysto alaalaan ku xidhanahay ma garanayo xitaa naftayda caafimaad dhakhtar hal lagu geeyo ayaa la diidan war dhakhtar aan tago ba ay haysto oo maxamed lug iyo gacan bidixay xanuuno aanan isku ogeyn baan isku arkaya dulmi baan ku dareemayaa meesha dhexdeeda waxaan ka codsanayaa dawladda Somaliland anigu dawladda madax bannaan iyo jiritaankeeda haddaan aaminsaneyn qawaaniinteeda iyo sharcigeeda ma mareen anigu weligay siyaasad ma dhexgelin waxaan ahaa fanaan taageerayaashiisa inuu waqti la soo qaato u tagay muqdisho haddaan ahaysan lahaa ogeysiis ah qofkii ajnabiga dalkayga yimaada muqdisho uma gudbi karana yaa oo aan ogeysiis ka haysan lahaa ma la sheegi lahaa maba gudbeenba waxaan kala sidnaa saaxiibada Suldaan iyo Xariir oo inta Hargeysa yimaadeen iyagu muqdisho ka soo noqday waxa aniga il gaar iga dhigay ma garan karo ilaa abtino marka waxaan ka codsanayaa bahda saxaafadda xuquuqul insaanka loo yar xitaa inaan qabsado in wax ay dhaqdhaqaaqaan cid iyo ogol ma jirto ilaahay baa ku soo xidhay ilaahay waa run ilaahay bay soo xidhay laakiin ilaahay wuxuu ku yiri dhaqdhaqaaq sameeyaan taageeraya cid dhaqdhaqaaq iyo ogol ma jirto aniga ehelkayga iyo familkayga ma joogaan maanta waxaan aaminsan maanta aan sida ragga qayre ee intii dambiile sameeyeen magaalada dhex socda aan ahaan lahaa reer Somaliland ama aan jilib weyn oo Soomaalida kamid ah aan ahaan lahaa daqad qaleen ma waxa la leeyahay carab baa tahay baa la leeyahay war anigu haddaan Yemeni ahay 20 sano ay Yemeni Soomaalida ay haysay ay marti u ahaayeen ay gobonnimo ugu noolaayeen ciid ma qabeen haddii cid gaar ah iyo dad gaar ah wax igu soo oogay maanta qof intii soo ristaagay oranay waxaas aad ugu samaysay ama waad nacayday ama waad nadishay ama waad naflagaadis anoo fanaan ah oo waxba sameyn oo ixtiraam iyo karaamo qof walba ilaahay si uu leeyahay ayaa waxa la igu dhaxiray meel dil iyo tuug iyo aan fanaaniintii iga horreeyay awal loo xiri jiray kiisaskan oo kale aan lagu xidhin ayaa la igu xiray waxaan ilaahay ka baryay ilaahay baa cadaalad hayay balse dadka ay shaqada tahay ha noqoto ama ha noqoto xuquuqul insaanka ama cid walba bulshada Somaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba iyo fanaaniinta Somaliland waxaan leeyahay aad baan uga fanku wuxuu ahaa ehel iyo walaalo laakiin waxaan hoygii fanka ee Somaliland ee Hargeysa ee afka Soomaaliyeedba xarunta u ahayd waxaad aad maanta dareensiiseen in cid gaar loo dhaqdhaqaaqo fanaaniinta waxaan leeyahay barasho wanaagsan kuwa aflagaadada iyo socialka dalaacada ka wada waxaan leeyahay ilaahay baa idinka weyn ilaahay baana garab la weydiistaa
waxaan kusoo gabagabeynaya hadalkaygana oon ku dheeraan bahda saxaafadda iyo cid kastoo iyo cid walba walal muslim ah waxaan ahay nin dhibaataysan oo dulmusan ilaahay hadii gargaar baan idinka rabaa iyo garab ciddii iyo awoodday jaaliyaddeena imantaa timid cid walba timid ehelkii cid wax ka soo qaadaysaa ma jirto marka please haddii wax laygu haysto gaara ay jiraan aan sameeyena diyaar anaa oo ah wadadeeda laygu qaado haddaan waxba sameynna nin xanuunsan baan ahay rabadaanna weeyaan in